بسم الله الرحمن الرحيم وداهر على سو oo ila dabasha geedaha madaxda ciyaasiiso waxaan u soo galay live kan oo aan rabaa inaan mahad celiyo guud ahaan odayaasha beelweynta ogaadeen ayaan rabaa inaan mahad celiyo waxaan rabaa inaan mahad celin gaara inaan si gaar ah u mahad celiyo odayaasha beesha maqaabul ee booqday tagay qabrigii awoowe amuudaan muqaabul tagay eel amuudaan tagay oo geliso dhowr kiiloomitir u jira qabrigii awoowe soo arkay qabrigii markasta la siyaaro jiray inuu saan noqdona ma taqaan waa laga calool xumooday oo maanta dal iyo dibad baa laga soo wacayaa oo leeyahay daahirow qabrigii awoowe amuudaan sidaan sidoo u noqday waxaan marka hore horta si gaar ah anigu mahad celiyo odayaasha beesha ogaadeen ee gartay muddo dheer kadib in dadkan walaalaha ah sacad iyo makaahiil walaalnimadooda la soo celiyo iskaashigooda la soo celiyo taariikhdoodii weyn la soo celiyo in muqaabalatoos raaco maanta uu tago qabrigii awoogood tago ay soo siyaartaan oo odayaashii laba dhinac ama xagga wardheer iyo doolaha ahaata ama dhinacaani galgaduud iyo mudug ha ahaatee intay israacaan ayagoo jira qabrigii dushiisa ay nagala soo hadlaan waa taariikh weyn oo annagoo nool ay noo suurto gashay oo ilaahay nagu simay inaan aragno waana waxaan ku faraxsanna waxaan rabaa kale inaan mahad celiyo madaxweynaha soomaali galbeed mustafa cagjar iyo kolonel axmed cumar jees iyo Sudan Fawzi ayaan rabaa inaan saddexdaas si gaar ugu mahad celiyo kaalinta ay leeyihiin iyo si ay u garwaaqsadeen dadkan dad wada dhashay inay yihiin oo midnimadooda ay muqadas tahay iskaashigooda iyo waalnimadooda ay muqadas tahay dhaliyaduna ma aha in kirmo Axmed Cumar Jasna waxaan leeyahay markaan aan wada joognana waxaan isku ahayn waa taqiinay maanta oo digjiga joogtana waxa aan isku nahay waa taqaanaa sacadna dal iyo dibad meel kasta joogaan abaalka aad u gasho iyo wixii alla qabato way kaaga mahad celinayaan waana ku hayaan haddaan adiga lagu abaal gudinna waxaanu abaal gudi doonaa oodkaaga iyo cayladooda iyo wixii dhalay waxay say dhaleen ayaa loo abaal gudi doonaa anu daahir cali soo waa la yidhaahdaa ma ahi dadka meelaha ka xantama ma ahi dadka aragtidooda mataqaanaa laloo dhunta kismaayo markaan joogno jalmaxaan faarax eedid maalin buu noo qudbeeyey wuxuu yidhi intuu dagaalka ahligaa socdo nin ogaadeen ninka dilo waa loo dilayaa wuxuu yidhi ninka ogaadeenka wuxuu ninka sacadkaa u leeyahay xaq ayuu u leeyahay aniga iyo 7 nin oo kale oo hadda 3 ka mid ay dhimatay waa weydiinay waxaan ku idhi maxaa dhacay wuxuu yidhi haddaad maqasho sacad waa niman muqaabala weeye oo reer amuudaana nimankaasi waa wada dhalanay waa walaalaha yaga nimanka ogaadeen wuxuu ninka sacad xaq u leeyihiin guud ahaan kumado oo dhan برنامجkaas oo jalmaxan faarax ee maanta noo sheegay wixii ka dambeeyay anigu saasaan u haysta saas sidoo qof taariikh buu leeyahay anigu jalmaxan faarax ee diid wuxuu aaminsanaay nin aaminsan ah wixii uu nacbaan ah hadalku ninka ragayna ruus ka sheegal rabaa waxa maskaxdayda ku jira waxa aan maskaxdayda ku jira ka guuxaya iyo fikradaha ku shaqeeyo waa tii jalmaxan faarax ee diid uu aaminsanaa inta wixii ka baxsan nin shaqo kula ma ah waa sababta aan weligay saa u haysto ogaadeen sida ay u haysto weligay ogaadeen hal maalin lagama dhaadhicin ninka ogaadeen wax isku batiidin hal maalin lagama dhaadhicin maanta wixii aan aaminsanaa ee fikirka ahayd inaan dadka wada dhalanay oo dhiig iyo dhacaan nahay oo dad isku abtirsiina aan nahay fikirkii aan aaminsanaa waa ka maanta hirgalay odayaashii ogaadeen dal iyo dibad ama gaarisa ha joogo ama jigjiga ha joogo
ama qorraxay ha joogo ama mataqaana dhulka meesha raba ka joogay intay soo bixeen maanta waa kuwaas Gilisoor jooga iyo qabriga uu amudan booqanaya waa taa tawfiiqdu ay cadda marka waxa weeye dadku hadday wada dhashaan waxa fiican in dhaliyaas la ilaaliyo maanta adduunku hal guri wada degan yihiin social media laga booqanaya wiil mataqaana wiil kasta waxa weeye dhalashadu wax la inkiri kara ma aha wax la inkiri karo ama loo kala tii karo ma aha gacmaha la isqabsanaya horay ayaa loo soconayaa qabrigana waxa laga rabaa on jaariyada weydsanaya ee dadka meesha maqaabul dhashay iyo ogaadeen oo dhan beerweynta saacad oo dhan waxa leeyahay qabriga uu amudan waa inaan dhisnaa waa inaan masaajid iyo mawlac weyn aan ka dhisnaa waa inaan u qodnaa eelka amuda waa inaan hagaajinaa wixii ka qaldan waa in halkaa ay noqoto meel aan soo siyaarno sanad kasta oo aan tagno oo aan dadkeena mataqaana u hayno haddii ay jiraan dad midnimada iyo walaalnimada iyo dhalashada ka xun waxaan leeyahay kuwaasi caradooda dhimanaya wax laga ma qaban karo caradooda marka aan ku leeyahay anigu nimankaas hadda bana qurbaha joognaa inta aan waftiga la dirin ka hor waxaynu samaynay wax la yiraahdo DNA test wiilka Ismaaciil Gumcad la soo qabo kan makaahir wiilka Muuse Gumcad la keen wiilka Ilaahay kuma istamadiiday saacadka keen kan Ibrahim ka soo qabo daahir cala soo qabo toban kala ku soo dar DNA iska qaada dad wada shalay waa samayn anagu 10 nin saacada iyo 10 nin muqaabalka doolarka yimida ayaan DNA Mareykanka u dirnaan tijaabin dad wada shay oo sayma oo waxba doonana marka hilkaas illa Gaarisa illa Nairobi illa ishaysta jigjiga illa qorraxay illa dhagax buur illa doolo illa Gilisoor iyo Gaalkacyo waxaan leeyahay waa uu guuleystay waana abaalka waa haynaa dadka wada dhashayna mataqaana waxaan leenahay Allah idin barakeeyo farxad ku soo dhawaada qodobkaas waa qodob ku saabsan nimanka la saacad nimanka la yiraahdo saacad laagta Gaalkacyo ilaa waxay degan yihiin xardheer 400 kiiloomitir oo isku wareega Gilisoor ilaa ka xandhaare ilaa Qorile iyo Wardheer degan yihiin qofna waxay rabaan marti uga ma waa qaran marka waxaan leeyahay sultaankii beeshii Ismaaciil Gumcad la tagay mataqaana meesha la yiraahdo Gilisoor iyo sultaankii beeshii Ibrahim iyo salaadiintii ogaadeen hal loo geel qalo soo dhaweeya birta laga bilaabo geel qalitaankiisa ha bilowdo xafladeynta iyo shirweynaha iyo dabaaldega iskaashiga caalamku saaha u ruxo shaqadu ha socoto ugu dambeyn waxaan rabaa halkaan inuu mahad celin ballan u jeediyo Sultan Xuseen Warsame Cali Shiddo oo guushaas maanta la gaaray iyo walaalnimadaas isbaysigaasi horseeday waxaan rabaa kan inuu mahad celin nabadoon jaamaxaange iyo mataqaana nabadoon Afrindood iyo siyaasiga Cabdullaahi Guutaale iyo Taliiguri Xawle iyo raga kale ee shaqada la waday ee muddada u dhabar adeegay ee hawshan isku xirkeeda ka shaqeeyay iyo dhammaan saraakiisha ciidamada iyo odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada reer mataqaana galmudug ee beesha saacad ee hawshan kaarta ka qaatay wixii aan lagu riyoonayay way dhaboobeen maanta waxaan leeyahay sida roo Allah la soo siiyo waa inoo midnimo nabadgelyo